jacayl iyo jihaad. buuggani waxa uu xambaarsan yahay sheeko isku milan oo ka kooban dhacdooyin dhab ah. waa qiso xambaarsan dhacdooyin ay dhandhamiyeen dhalintii u soo joogtay dharaaro badan oo qisadan lagu xusay. waa qiso ay ku kulmeen 3 hawlood oo mid waliba culayskeeda leedahay. waa jacayl, jihaad iyo haajiraad. waa qalinkii Axmed Maxamed Yuusuf Axmed Barwaani. waa mar kaleeto iyo sheekadeennii jacayl iyo jihaad oo qaybteedii 8aad inoo maraysay daahir iyo deeqa oo labaduba ku sugan xiradii qaxootiga ee Dulcad oo si kidisa ahna ugu kulmay makhaayadii shaaha ee ay deeqi Dulcad ka samaysatay si ay ugu maarayso nolol maalmeedka reerkooga. bal haddaba aynu u gudagalno qaybtii 9aad ee sheekada iyo xaaladda daahir iyo deeqa ee xirada qaxootiga ee Dulcad. dhalinyaradii fadhiday makhaayadii deeqa waxay sheeko u dhiibto waxaa u soo gashay idaacaddii BBC Soomaali ee 5 galabnimo. waxaana qadarkii ay hawada ku jirtay loo dhageystay si degan iyadoo dhigta loo taagay waraysi ay la yeelatay mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo ahaa gudoomiyihii xilligaas ee SNM. deeqa caadiyan marka 6 fiidnimo warka BBC dhamaado way xidhaa makhaayadda waanay ka carrawdaa. waxaa qolkii shaaha ka soo wada baxay deeqa iyo Leyla oo wada joogay. Ismaaciil iyo Daahir weli goobta kamay dhaqaaqeen. mid walibana waxa uu si gaar ah u xiisaynayaa inuu la kulmo deeqa. daahir ayaa ku dhaqaaqay labadii hablood salaamayna. Ismaaciilna wuu ku darsaday salaantii. gujiho ayaa loo carraabay socodkana waa la isku darsaday. Leyla waxay su'aalo ku bilowday Ismaaciil si fursad ay si gaar ah ugu sheekaystaan daahir iyo deeqa ay u siiso. waanay ku guulaysatay markii iyadii Ismaaciil sheeka qabsadeen. lamaanihii kala raagina mid gaar ah qabsadeen. daahir wuxuu horeyba ka weydiiyey deeqa inay saaxiibkiisii qaaliga ahaa aragtay. waxaanay si kaftana ugu dhiibtay sawdigii isaga iyo anigaba naga baxsaday. adoona wargelin maxaad maanta oo la kala lumay ka raadinaysaa mahad. waxaanay u raacisay inay ugu argi dambaysay maalmo ka hor intaan dagaal ku dhicin. deeqana waxay ka waraysatay daahir xaaladiisa caafimaad. waan arkaa inaan socodkaagu caadi ahayn ee dhaawac intee leeg ayaa ku soo gaaray. waxaanu daahir uga warramay sida ay wax u soo gaareen. deeqana waxay tidhi waa alla mahadii haddaad ka nooshahay ee isbaxnaani inta aad si fiican u bogsanayso. daahir aad ayuu uga helay sida naxariista leh ee deeqi caafimaadkiisa u danaynayso. waxaanu ka waraystay reerkoodii. waxaanay u sheegtay geerida aabbaheed. aad ayuu uga naxay geerida ku dhacday. waxaanu fahmay su'aal maskaxdiisa ka guuxaysay oo ahayd talow maxaa ku kalifay inay makhaayad aanay khibrad u lahayn furato maadaama aabbaheed ahaa ganacsade ladan oo reerkiisa ku filan. waxaanu yidhi walaal samriye iimaan aabbana alla naxariisti janno ha siiyo aamiin. wallee waa inan iyo badh ayuu daahir uurka ka yidhi. wuxuuna damcay inuu nolosheeda inay wax ku soo kordheen uu ka waraysto balse kumuu dhiiran. waxaanu door biday inuu si kale ku soo ogaado. daahir mujaahidiintu waari maysidee wiil ha kaa hadho ayay qaar badan ku guursadeen ma isku dayday adigu ayay deeqi weydiisay. waa su'aashii uu kala baqay inuu iyada weydiiyo oo isaga ku socota. maya inaabti ayuu si kooban oo dabacsan uu ugu jawaabay. waxaanu isaga oo midhii uu hore u liqay uga faa'iidaysanaya weydiiyey deeqa adiga calaf ma kuu soo baxay. deeqa oo kaftankeedii macaanaa ridanaysa ayaa tidhi oo inaabti ma qof shaah iibinaysay cidi ka hoos qaadaysa. isaguna ugu jawaab war baanad hayne haadku shaahlaydu dul hoganaya. iyadoo oo kaftankeegii sii wadataa ayay raacisay ma kursi diiriyaad moodaysaa inuu arrin culus la fadhiyo meesha. daahir waxa uu hadalka u fahmay inay ula jeedo Ismaaciil oo shalay waxoogaa ammaani ka yeedhay balse iyada ay ka ahayd kaftan guud ee aanay cid gaara ku duraynin. bal hadda waanu ka warhayn ayuu daahir kaftankii ku dhameeyay.
fiidkaasi mid aad u qiimo badan ayuu ahaa, labadoodabana waa mid ay nasiib dib ugu yeesheen inay ku wada kaftamaan. Isbarashadii koobneed ee Hargeysa ku dhex martayna soo nooleeyey. waxay xaqiiqsadeen inaan midkoodna noloshiisa qof kala gelin. waxay qireen inay yihiin dad isku hiloobay. waxay dhowraan waa calafka iyo nasiibku halka ay dhigaan. mid walibana waxa uu dhankiisa ka qirsan yahay inuu kalgacayl u hayo midka kale. haddana sabankan lagu jiro oo ah mid halgan loo tafaxaytay ayaan suurtagelin inay ku dhiiradaan ka midha dhalinta dareenka isu galay labadooda. waxaana mid waliba gaar hoosta ugaga ducaysanaya in Allah isku simo saban barwaaqo iyo nabadeed calafna isku simo. maalmo kadib waxa u dhammaaday Daahir dhakhtarkii uu ka warsugayay, waxaanu kala carraabay natiijo la'aan. waxa kaliya oo ay u sheegeen waxay ahayd in maqalkiisu hoos u dhacay una baahan yahay sameecado caawiya iyo baaritaan adeega dulcad yaala ka badan. maalintaasi uu natiijada dhakhtarka helay waxa uu walaalkii uu u sii raacay harta sheekha, isaga oo u sii dhaafay degmada Dabalweyne kuna booqday mujaahidiin dhaawaca. waxa uu kula kulmay asxaab kale oo dhaawac fududa rabayna inay dib ugu laabtaan aagga hore ee dagaalka si ay xoojin iyo dhiirigelinba ugu noqdaan ciidanka. Daahir isna waxa uu goostay inuu raaco, inkasta oo ay ka diideen, haddana waxa uu ku qanciyey inuu maalmo yar la soo joogi doono. waxa maalintaasi ka xumaaday gaadhigii ay raaci lahaayeen, waxaanay kaliftay in harta sheekha looga doono bir ka xumaatay. Daahirna waxa uu soo raacay laba mujaahid oo doonay birta, sidaasina waxa uu dib ugu soo laabtay dulcad. maalmahani waxay ahaayeen wakhtigii dhalinyaradii iyo waxgaradkii reer Somaliland lagu xasuuqay xeebtii Jasiira ee magaalada Xamar, halkaasi oo habeen kaliya lagu laayay dad badan oo tiradoodu gaarayso 50 qof. waxaa lagu xasuuqayna ahayd kaliya halka ay ka soo jeedeen deegaan ahaan iyo qabiil ahaanba. dulcad iyo dal laga tabay maalmihii ugu dambeeyay ha ugu horeyso deeqa oo il naxariiseed gaara ku eegisay. markii uu soo gaaray dulcad waxa uu abbaaray baradii uu ku ogaa hooyadii si uu niyadda ugu soo dejiyo uguna soo nasto. casarkiina waxaa jirtay xaraarad shaah oo shaah iskuma jiray kii deeqa yar begayn jirtay. walow la odhan karo xaraaraddu shaah keliya ma ahayn ee waa loo wehelinayay. goobta kama muuqdaan asxaabtiisii shaaha iyo sheekada la wadaagi jirtay. waxa fadhiya xaggiisa waa ka garan waa. waxa uu isku qaaday cariishkii deeqa. way heesaysaa, shaahiina waa u diyaar oo kama kala go'ayo. dalabkuna waa xaami. heesta socotaana goobtii ku habbooneed ayay maraysaa. waa Maxamed Saleebaan Tubeec iyo Magool, Allah u naxariiste. salaamu calaykum deeqa. calaykum wasalaam ayay deeqi ku celisay, iyadoo heestiina sii xiisaynaysa, qofka salaamayana waajib ka saaran gudanaysa. waxaanay raacisay, waar Daahir xaggeed ka dhacday maalmahan. waxa uu la kulmay Maxamed Saleebaan oo goorahanba jiidayay. waxaan kaaga maqanahay meel dheer ma joogine muraadkayga gaarka ah. Maxamed Saleebaan baa ku jawaabay, ayuu Daahirna ugu jawaabay. khajilaad ayay la jeesatay deeqi iyadoo leh, waar Maxamed Saleebaan ha igu gabane soo fadhiiso. gamban ayay u dhigtay, koob shahana way ku qabatay. sheekana jilbaha laystiri, waxaana u dheer heesaha ay macaamiisha ku maaweelinayso galabtaasi. intii la sugayay BBC-da ayaa ahaa heeso u ekaa inay si gaara oo dareen leh u soo xushay, kaftankoodana qayb weyn ka qaatay. cabbaar markay sheekaysteen ayaa warkii soo galay, inkastoo iyagu xiise u hayn warkan kana jeclaayeen heesaha u baxayay, haddana raaligelinta macaamiisha ayaa mudnaanta la siiyey. markii idaacaddu ka baxday waa la wada carraabay, waxaanu taandhadeedii ku hubsaday deeqa. is arag dambe ayay ku nabadgeliysay. waxaanu xasuustay in uu si kedisa ah ku bixi karo.
waxaanu ku yidhi inaan baxaa laga yaabaa haddii aynu is arki weyno sidaasi igu ogow. deeqa way soo joogsatay oo xaggee baad tegaysaa iyo inaan ciidanka yaro gaadho ayaa laga yaabaa, laakiin kolley haddii alla idmo waan soo noqon. deeqana waxay ka codsatay inuu soo maro inta aanu bixin, iyadoo aadna ugu adkaysay. subaxii waxa uu daahir soo kacay isagoo oo weli ka fakiraya waxaa deeqi u sheegi doonto oo uu xalay oo dhan rogrogayay, kolbana dhanka istaagayay. waxaanu arrin dhaafin waayey inay guur iyo xidhiidh u soo bandhigi doonto, balse haddana isku qanci inuu in ku filan ka yaqaano deeqa oo aanay ahayn qof arrimahaas ku degdegaysa. deeqa laftigeedu waxay habeenkaas ku hamiyeysay arrimo badan oo ay og tahay in aanay ka suurtagelin, inkasta oo mararka qaar jacaylka haleelay u sheegayay inay ku dhiirato kuna dhaqaaqdo u soo bandhigista dareenkeeda daahir, balse haddana waxay nafta ku qancisay inay sugto muddo yar, maadaama oo hadalka sida uu u dhigay ay ka muuqatay inuu soo noqonayo. barqadii subaxaas la ballamay intaanu harta sheekha tegin ayuu sii maray. way soo dhowaysay sidii caadiga u ahayd. waxay weydiisay inta uu maqnaanayo. waxaanu daahir yidhi garan maayo, laakiin kolley haddii allah nafta inoo daayo dhaqsaan u soo noqon doonaa. hadalkaasi deeqa niyadejin ayuu u noqday, waxaanay ka codsatay in aanu isdhibin isna dhowro. waxaanay ugu dartay hayga xanaaqin, xumaanna ha u qaadan. waa mid aynu isku leenahay oo ah wanaagga iyo walaalnimada inaga dhaxaysa. waxaanay u soo fidisay warqad qadar lacagihii ay ku jirto. waxa uu isku dayay daahir inuu ka diido, laakiin afeeftii hore iyo iyada oo dhaar ku martay ayaa ogolaysiisay inuu ka aqbalo qadarka ay sooriyada uga dhigtay. mahad celin iyo ismacaslaamayn qiiro badan ayaa lagu kala tegay maalintaas oo ahayd markii labaad ee uu halganku midba gees ka tuuray. soo noqo adoo nabada iyo rabbi ha isku keensimo uurka laga qaadayo ayaa araggiina ku kala libdhay. maalintaasi waxay kala tageen iyaga oo isku muujiyey jacayl dhex yaalla, oo mid waliba dareenkiisa midka kale ka dheehday rabitaanka ka kale, laakiinse wakhtiga afgaabni iyo xishood ay u dhasheen awgeed ayaa mid waliba gees ula carraabay dareenkiisa, kuna keliyaystay mar labaad dareenkii jacayl ee barwaaqeed haleelay. deeqa maalintaas shaqadii may dhammaysan, waxaana jiif iyo heeso la hoos gashay taadhadii ay ku nooleed. waxaana heesihii qiirada ku sii beeray galabtaasi ka mid ahaa heesta uu ku luqeeyo fanaanka xasan aadan samatar. cashaqani muxuu gabay laba, guusha wada jecel, god muxuu ku kala riday laba, guur isku ogaa, geerina mid yidhiho. cashaqani muxuu gabay laba, guusha wada jecel, god muxuu ku kala riday laba, guur isku ogaa, geerida mid yidhiho. gedi dheer muxuu calafay gacal oo man kala raraysna, geed ku kala xiray. sanadku waa 1990kii. daahirna halgankii ayuu ku noqday, waxaanu ka mid noqday ciidankii ka howlgeliyey waqooyiga Hargeysa, halkaas oo ay dagaallo xoogan kula galeen ciidankii Siyaad Barre kuna jebiyeen. dagaaladaasi ku gidaanaa Hargeysa waxay soo dedejiyeen xoreyntii dalka markii haraagii ciidankii Siyaad Barre iskugu soo ururay gudaha Hargeysa, godoonna ku galeen. dhalinyaradan halganka kula jirtay ciidankii Siyaad Barre may ahayn kuwa guusha ku gaaray si raaxo leh, balse waxay kala kulmeen rafaad iyo dhib badan, ha noqoto dawo la'aan, biyo la'aan, cunto la'aan. waxay ahaayeen kuwa ka fogaaday saadkii ciidan ee ay haysteen, waxay qaadan karayeenna uu yaraa. waxay socon jireen masaafado aad u dhaadheer si ay meel kasta oo ciidanka Siyaad Barre lagu sheego ay uga saaraan. waxaa ka madhay kabihii iyo dharkii ay xidhnaayeen. waxay cuneen diinka iyo ugaadha wixii ay heli karayeen.
waxay quuteen dhirta iyo doogga, waxaa dhacday uusmiirasho, waxaa laga dhaqaaqay dhaawac iyo bukaan, dugaagga iyo haadu cuntay, waxaanay mareen marxalado badan oo aan la soo koobi karin, waana sabankii kaadi cabku dhacay. deeqa waxay sii waday dadaalkii ganacsi oo Rabbina uu ku gargaaray. isla bartamihii sanadkaas ayaa deeqa habaryarteed oo deganeed Dirdhaba timid Dulcad, waxaana walaasheed oo ahayd deeqa hooyadeed ku wargelisay inay heleen fiiso ay uga baxayaan dalka Ingiriiska oo wiil ay dhashay uu u soo diray. waxay u raacisay inay ku jirto gabadh dheeraadi, taasi oo ay jeceshahay inay hablaheeda mid ku kaxayso. xaajiye Siraad waxay u sheegtay inay fiisahaasi deeqa ku baxdo maadaama ay iyadu ugu weyn tahay 3 hablood. walaasheedna way ka aqbashay. habeenkii markii deeqi ay soo hoyatay ayaa lagu wargeliyay sida ay wax u jiraan, loona baahan yahay inay diyaar noqoto si ay 2 maalmood kadib ugu baxaan Addis Ababa. deeqa waxay ka codsatay waalidkeed inay inanta ka yar lagu kaxeeyo si ay iyaduna hawsheeda u sii wadato. taasina waxaa ka diiday hablihii iyo hooyadeed. deeqa waxay ka codsatay waalidkeed inay inanta ka yar lagu kaxeeyo si iyaduna hawsheeda u sii wadato. taasina waxaa ka diiday hablihii iyada la dhashay iyo hooyadeed. waxaanay u sheegeen inay shaqada makhaayadda iyaguba wadi karaan maadaama oo ay 3dooda midba maalin joogto, ay 2 soo hadhaa ku filan yihiin. waxaa qasab ku noqotay inay ku diyaar garowdo 2 maalmood gudahood, kana dhaqaaqdo dad intii ay u jeclayd oo hooyadeed macaan ugu horrayso. waxay soo nabadgeliyay dad intii ay gaari karaysay, intii kalena waxay u marisay hawada duco. deeqa waxay kortay gaarigii gaarsiin lahaa Jigjiga oo ay ka raaci doonto baska Dirdhaba, halkaasi oo ay u sii dhaafi doonto Addis Ababa. hooyo Siraad duco ayay la hoos taagan tahay, ay ugu dhammaysay nabad xidh, balaayo xijaab iyo in albaabada khayrkoo dhan Allah u furo. toddobaad gudihii deeqi waxay ku gaadhay magaalada Addis Ababa, halkaasi oo ay diyaar ugu ahayd fiisadii dalku galka Ingiriiska iyo tigidhadii diyaaraduba. waxaanay bishii Juun 8 sanadkii 1990 ay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada London ee loo yaqaano Heathrow Airport. maalintaasi oo ahayd maalin xusuus mudan oo ku beegneyd furitaankii ciyaarihii koobkii adduunka, oo maalintaasi ciyaar taariikhiya gundaha isku dareen magaalada Milan ee dalka Talyaaniga kooxaha Argentina iyo Cameroon, halkaas oo ay guusha ku raacday dalka Cameroon oo ka badiyay kooxdii horyaalka adduunka ahayd. maalin diiran cadceedina jirto ayay ahayd. dadka madaarka gudihiisa isweydaaranayana waxay ahaayeen dad aan ku labisnayn koorarka dhaxanta ama barafka laga xidho iyo funaanado, waxaanay ku xaragoonayeen garamaan iyo dhar gaagaaban.
reerka 12 qof ka kooban ee deeqi ka mid tahayna waxay ku shiraaqan yihiin fulaanado iyo koorar ay kaga soo gaashaanteen dhaxanta iyo barafka lagu sheegay dhulkan ay u soo haajireen. waxa isku qaban waayay cabsida ay ka qabeen dhaxanta dhulkan iyo dadkan ay madaarka ku arkayaan. iyagii baa dareemay diiramaad kuna gubtay hugii ay siteen. waxaana u suurtageli weyday inay iska bixiyaan koorarka maadaama oo ay siteen xamaan kale oo badan ha ugu cuslaadaan bustayaasha iska warranta loo yaqaan oo ay u arkayeen muhiim in loo qaato dhulkan oo kale. markii ay ka soo dhammaadeen laantii socdaalka lana soo mariyay qaybtii caafimaadka kadib waxay urursadeen xamaantoodii waxaana loo hagay albaabka laga baxo. halkaana waxaa kula kulmay qolada kastamka oo baaritaan ku samaysay shandadihii ay siteen. halkaas oo lagaga reebay waxoogaa subag iyo muqmad baadi u siday wiilkeeda qurba kuraaga ah ee fiisada u soo diray. wax la yara rafaadyaba albaabkii ka soo baxay dad badan oo ajaaniba hortuban waraaqna kor u wada taagaya. waa waraaqo ay ugu qoran yihiin magacyada dadkay sugayaan darwalada shirkadaha iyo hoteelada u shaqeeya. talow hooyo kuwanna maxaa loo qaybinayaa ayaa baadi weydiisay carruurtii la socotay balse iyaguba dhan ay u qaadaan ba way garan waayeen. waxaana uga dhex dhawaaqay cabdikariin oo goobta ku sugayay iyaga. waa dad kala baaday wakhti dheerna isugu dambaysay laysku dhegdheg qiiro yar dabadeedna waxaa loo soo dhaqaaqay dhanka tareenka dhulka hoostiisa mara. cabdikariin ayaa u soo gooyay kaararka lagu raaco tareenka. la soco qaybta 10aad ee sheekadan jacayl iyo jihaad. أنا على السليلة